بسم الله الرحمن الرحيم أمد الصومالية وحاو لا يابتن وشيء دونا هدا حسوسناتان markii Dubai ay tikada berbere imaan jirtay 2 sano ka hor iyo 3 sano si sheegan ku yiri berbera waxay imaan doontaa 2 sano kadib tikada berbera waxa qaadan doonta Dubai way ugu caydeen military baana la wareegi doonaan ku yiri kadib badaha Soomaaliyeed boosaasa ku xigi doonto ilaa badaha Soomaaliyeed bal la wareegaysa dadkii halkan ilagula jiray waa wiilka mucjisada Ilaahay baa malaa'iga garbahayga saaran dad badan way marxad kacayaan waa sheegay 3 sano cid aamintay ma jirto oo Soomaali ah hatta professoradiina ay u soo caay oo naga tag baa lagu yiri wariyoonaysaniyo aqoontiina heerkaas taagan tahay siyaasigiina saas weeyo Ilaahay waxa uumay oo been idinkaga xaqiijinaynin inay marka yimaadeen oo ay qabsadeen berbera ay dib igu soo laabteen wala ma arkaano wala warunta lagu yiri wala hada gacanan ku taagnay xagee u socdaan baa lagu yiri mi istaagi doonaan baan ku yiri ilaa Soomaaliya dadka ay badda ku daraan bankuur dalkan ay qaataan hadda waxaan idin leeyahay hadda waxaan rabaa dawladda Mareykanka inaan maanta ka codsado shiinihii wuxuu qodanayaa ceelkii baabu Mandab ceelkii ugu weynaa ee shidaalka oo caalamka oo ummadda Soomaaliyeed aysan ogeyn oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay ayuu qodanayaa wuxuu soo saarayaa shidaalkiisa sida uu ku hanweyn yahay 2019 cid ogaan kartana ma jiraan horay ayaan sidan oo kale inaan intaan ugu dhawaaqay ceelashi Kenya dadka Soomaaliyeed sanad kadib ogaadeen oo ay u mudaharaadeen 2019 kay ogaan doonaan laakiin aniga hadda si sheegaya dawladda Djibouti wuxuu siiyay kontraktiyaal inay meesha ka eedisa ma rabto dawladda Mareykanka iyo CIA-da Mareykanka waxaan u sheegaynaa taageera dhalinyaradeennada kacdoonka dhalinyarada Muqdisho annaga ballan waxay nagu tahay inaan Soomaaliya Mareykan state ka dhigno inaan South Africa oo kale South Korea oo kale sida aad ka dhigtaan aan naga dhigtaan idinkana aan ka dhigno dadkeenagii baad haysaa aqoon-yahaninteenadii baad haysaa ummadeenadii baad gargaartay waxaan Arab ayaa nagu kaadirtay oo ciyaalkeenagi iyo haweenkeenagi nagu dirtay adigiina Arabna adigii bay ku niikinayaan siyaasiyiinteedina indhahoodii oo dhan waa waxay awoogood ku soo garaansadeen oo Arab bay arkaan besa waxaan idin leeyahay Mareykan iyo CIA sida ugu dhaqsaha badan la soo xiriira dhalinyarada kacdoonka Muqdisho annaga ayaa meel walba ku nadiifinayno annaga ayaa khayraadka gacanta ka gelinayno dawladan adiga ku soo maran waa ka xaaraantimaysan tahay dalka Soomaaliya cid kale oo aaminta ma jirto iska ilo wax kale oo aamini karta ma ummadda Soomaaliyeed waa ummad siyaasiyiinteeda jawaabka lacag ku buuxsado qadiyad ma laha Britain kii dhalashadaada haystay baasaboorka Mareykanka haystay ee inugu sareeyay ayaa maanta khadar iyo argagixiso u galay waxa ku soo socota Mareykan oo Soomaaliya argagixisadii ugu weyneed oo Fahaad iyo qolo kaleenta ay ogtahay sirdoonkadan ay og yihiin inay ma aragtay ay maanta xataa baabuurtii ay soo geysay ciidanka la dhisay ka soo gaar ciidan Muqdisho iyo koonfur lagu qabsadaa la rabaa madaxweynahana waa nin iska aqli yar waxa lagu siray in dictator uu noqon doono dalkan 20 sano oo haysan doono oo loo qabanayo waxaana ka hor socda mission ay ka dambayso khadar iyo baashi la dhigi jiray Fahad Yaasiin oo qolo argagixisa ay wadato oo xukunka lagu qabsanayo ciidamadan la dhisaayo ee hadda xamar ka socda la soo afjaray baabuurtiina way keentay hubkiina way soo wadaa khadar sidii Muqdisho iyo koonfur looga takhalusi lahaa haddii aadan ka soo gaarin Mareykan oo garab aadan ugu siinin waxaan ku sheegayaa in Soomaaliya argagixisidii ugu weyneed xukunka qabsan doonto ninkaana waa nin dictator iska jecel oo baasaboorkaada wato wuxuu yahay mal aqliga laga xaday waxa lagu yiri sidii 20 iyo dhowr sano haysan doontaa baa lagu yiri filin kalena lagu hoos wataa ka soo gaar dalkan waxaan mar kale ugu baaqayaa Mareykanka inuu garabna siiyo dhalinyarada kacdoonka banaadir Muqdisho ganacsatadana waxaan ku baaqayaa inay mudaharaadaan oo soo baxaan oo ma aragtay Muqdisho yimaadaan ku mudaharaad iyaga oo lama arkaan ku haayo idinka lacagti hayo idinka maanta xukumo Muqdisho ha cabsoonina soo baxa xaqiinu u dooda mudaharaad baan idinka filayaa insha Allah taala idinkoo ganacsigiina idin xiray mudaharaadkana dhinac ka wada waxaan idinku leeyahay taageera maanta kacdoonka halka ka dhashay
ayaa rabaa inuu ilaahay hadduu yidhaahdo afarta koono ee soomaaliya uu socdo waxaana aan xaaqno beenaalayaasha iyo qaa'imiinta iyo tuugadan iyo boqolka nin ee kala jinsiyadaha wato ee na xukumo inaan dalka ka saarnaan rabnaa waxaan idin leeyahay mar kale waa baaqi karanta aan ganacsada u soo jeedinayo maraykanna waan u soo jeedinayaa nagu soo biir maraykanow annagaa dalka u qabanayno jabuuti dalkii bay siisay shiinihii haddana wuxuu la heshiinayaa somalilan wuxuuna wadaa inuu badii qaato uu qabsado baabu manbab ka soo gaar ceelkii shidaalka anigu qodanayaa ma aragtay wanakaa waan soo wada sawiray ummadda soomaaliyeed mar kale waxaan ku baaqayaa inay u istaagaan soomaalinimada cadaaladda iyo sinaanta annagu qofaan maraykan ahayn ma doonayno maraykan baanu rabnaa caawiya beriba sida South Korea uu ka dhigay waad aragtaan maraykan wax uu kugu fulay ma jiraan maraykanna khayraadkan baan u xireynaa dawladdan isaga soo marin ma jirto aabaan isaga ka heyna ma yeelano dhalinyarada Soomaaliyeed ugu soo biira state-ka maraykanka labaad baan ka dhigayaa 52 ama 51 waxaan idin leeyahay mar kale into ilaahay baan ku dhaaranayaa wallahi magaca Allah inuu ku dhaaranayaa shin maraykan leeyahay inaan arag inuusan maraykan ila xiriirin inaan maraykan uusan aan shaqo uusan ku lahayn waxaan ka hadlayo waa fikirkayga waa maskaxdayda waa rabitaankayga dalkan sida aan ku badbaadin lahaa oo kaliya dalkan wuxuu leeyahay 150 cadow oo Soomaali inay degta aan lahayn carabna haddaad xasuusnaataan Soomaaliyay waxay siin jirtay dawladdii hore ee siyaad barre sidaal free ah lacag free ah ha qodan caalashan bay dhihi jireen carabta sidaa bay noo lugoon jirtay waligeen iyo allahayn boqonadeena jiri jirtay xaasinimadeeda waxaasna waxay Soomaaliya in aysan waligeed degin dhulkan oo sidaa iska noqdo si aan baabo madadna aan u controlling si aanan shidaalka iyo khayraadkana aan ugu faa'iideysanin marka walaalayaal iyaga aabahood baan u tageynaa aabahood baan ku xirnaynaa maanta maraykan oo haddaad ka soo gaari weydo dawladdii jaynaha waxay ku harqatay mashruuciyo Jabuuti ma hadli karto badii oo dhan way qabsatay annaga kaaga kicinayno baamudad annaga ka kicinayno dhalinyarada ka ergeyso oo adiga gacanta ka gelinayno nagu soo biir shidaalkii way qodan rabtaa ka soo gaar maraykan shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa baabumada waxa ku jiro waa maranka afraad waxa ku jiro halkan aan maanta inaan kala hadlayo waa markab dhexdiisa oo baabumada dhexdeeda ah sawirradana aan idinkaga soo qaaday waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa in ay arrimaha halka marayaan shidaalkeenina loo qodanayo aniguna kii horena waa iga diideen anigu wax Soomaalida ka weyn baan soo sheegaa arrintan Soomaaliya kama dhici doonto laakiin 2019 ka ogaan doontaan sidii Kenya aan hal sano kor markaan soo sheegay aad ogaateen haddana waxaan idin leeyahay maraykanka nagu soo biir kacdoonka dhalinyarada Muqdisho Banaadir dawladdii waxay noqotay dawlad hadda argaxiso ka soo gaar khadar baam ciidamada Muqdisho lagu dhisaayo hub u soo wado baabuur way siinaysaa ciidamadana waxa la rabaa in koonfur lagu qabsado oo dhan qofkii hadlaana cirta cagta la mariyo waxaana soo socda xataa cadaadis aad u fara badan halkaana waxaa laga yaabaa in maarta dhibaato weyn ay ka timaado insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa si looga hortago waxaas oo dhan in ay kacaan nimanka Banaadir gaar ahaan ganacsatada kuna soo biira kacdoonka dhalinyarada maqaamka Muqdisho aan ku raadinayno Soomaaliya aan ku xoreynayno wala ma arkaan insha Allah ta'ala mudaharaad baan ku baaqaya ganacsatada Soomaaliyeed lacagtaana ma bixin kartaan xaaraanta ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh